barnaamijkeena maanta qaybtiisa shanaad waxa aynu uga warrami doonaa magaalada taariikhiga ah ee Zaylac taas oo ka mid ah magaalooyinka ugu faca weyn ee Soomaalida uguna qadiinsan anigoo Cabduqaadir Maxamed ayaa soo saaray idilana socodsiinaya inta aynu uga galin barnaamijka oo dhameystiran haddii ay tahay markaagii kuugu horeysay aad ina soo booqato rukumo channelka naga si aad ula socoto macluumaadyada taariikheed ee caalamka iyo Soomaalida. Zaylac waa magaalo dekedeed ee taariikhi ah kuna taalo galbeedka gobolka Awdal. intii lagu guday jiray qarniyadii dhexe socotadii Yahuudda ayaa u aqoonsaday inay tahay xawiila oo macnaheedu yahay meeshii Baybalka. taariikhyahanada ayaa ku muransan imika in qarnigii koowaad magaaladaasi hoostagi jirtay boqortooyadii Gariiga ee Ptolemigii Masar ka arrimin jiray, laakiin xigashada taariikhdani ayaan lahayn tixraac dhab ah. magaalada Zaylac ayaa markii dambe isku bedeshay xarun islaami ah taas oo muslimiintii hore ay ugu soo hijroodeen. qarnigii 9aad Zaylac ayaa ahayd caasimadii boqortooyadii Aadal ee hore iyo saldanadii Cifaad ee qarnigii 13aad ka arrimin jirtay, iyo sidoo kale waxa ay caasimad u ahayd boqortooyo waliba ay ka dambeysay saldanadii Cadal. magaaladu markii dambe waxa ay hoos timid Cismaaniyiinta iyo Ingiriiska qarnigii 18aad. Zaylac waxaa ku wareegsan gidaar weyn oo 5 albaab leh kuwaasi oo lagu kala magacaabo Baab al-Saaxil iyo Baab al-Jad oo ku yaal waqooyiga, Baab Cabduqaadir oo dhanka bari ah, Baab al-Saaxil oo dhanka galbeed, iyo kan shanaad ee lagu magacaabo Baab Ashurbuura ee dhanka koonfureed. magaaladani Zaylac waxa ay ku taalaa dhulkii soo jireenka ah ee qabiilkii Direed ee Soomaalidii hore. sidoo kale waxa ay ku taalaa xeebta gacanka cadmeed taas oo xuduud dhow la leh Djibouti. goor hore oo aan dhaweyn ayaa muslimiin ka timid jasiiradda Carabta u soo hijrooday Zaylac si ay islaamka u gaarsiiyaan magaalada Zaylac iyo magaalooyinka kale. waxaa markii ugu horeysay laga dhisay masaajidka loo yaqaano Qiblataynka. masaajidkani waxaa dhismihiisii laga yegleelay qarnigii 7aad, waana masaajidka ugu da'da weyn dhulka ay Soomaalidu degto. dabayaaqadii qarnigii 9aad Al-Yaquubi waxa uu qoray in muslimiinta ay ku noolaayeen hareeraha badda ee waqooyiga Soomaaliya. waxa kale oo uu xusay in boqortooyadii Cadal ama Awdal ay caasimad ku lahayd magaalada Zaylac. qarnigii 9aad ama qarnigii 10aad siyaasadda waxaa maamuli jiray boqortooyo maxalli ah oo ka koobnayd Carab Soomaali ah ama Soomaali la carabeeyay, kuwaas oo sidoo kalena ka talin jiray magaalada caasimadda u ah imika dalka Soomaaliya ee Muqdisho. sanadkii 1214 Ibn Saciid ayaa tilmaamay in magaalada Zaylac ay ahayd magaalo qani ah, dadka ku noolna ay ahaayeen muslimiin. hubay carigaygu wahodano hubay ciidiisu wadahabo hubay nikacaw dhigta nabade hubay ku cawe badhaadhaha hubay waana caadil mahdi. saldanadii Awdal waxaa aas-aasay Sabr ad-Diin kadib dhicitaankii saldanadii Cifaad. ereyga Awdal ayaa tilmaamaya inuu yahay xawiila sida aan horey u soo sheegay, waxa uuna ka yimid kitaabka Quduuska. Ciidal ama Aw Cabdaal waxa uu ahaa amiirkii Harar qarnigii 11aad. qarnigii 13aad qoraaga Carbeed ee Al-Dimishqi waxa uu tixraacay in Zaylac ay ahayd caasimadii saldanadii Aadal ama Cadal. asalka magaca Soomaaliga ee boqortooyadaasi ayaa ahaa Awdalta imika kamid ah gobolada Somaliland. boqortooyadii Walaashma ee saldanadii Cifaad iyo Aadal waxay lahaayeen hidaha abtirsiinta Soomaalida. boqortooyadii Walaashma waxay ahayd boqortooyo muslimiin ay leedahay oo ka talin jirtay geeska Afrika. waxaa la aasaasay 1285 waxa ayna xarunteeda ahayd magaalada Zaylac. waxa ayna saldhigyo ka samaysatay geeska Afrika. waxa ay maamuli jirtay saldanada Cifaad iyo Aadal. Somaliland maanta Djibouti iyo bariga Ethiopia. hobala hobeeyo hobay cirifyada hargeysaadiyo hobay cirgaaba iyo salan hobay caynab iyo hawde hobay
kastaba dhulkan dago sida dadka qaar ay qabaan amiiradii walaashma ee afaad iyo cadal waxa ay lahaayeen dhaqamo ku abtirsada carabta xagga abtirsiinta dhaqamada walaashma waxa ay ka soo jeedaan qabaa'ilka reer banu maqsuuma ee quraysh asaasihii boqortooyada ayaa lagu sheegay inuu ahaa cumar walaashma oo ka soo jeeday quraysh ama asal ahaan ahaa haashimi si kastaba ha ahaatee boqortooyada walaashma ee ifaad waxa ay inta badan ku xirneyd sheekh yuusuf binu axmed alkownayn oo lagu tilmaamay inuu ahaa nin soomaali ah oo reer saylac ahaa intaa waxaa dheer kitaabka taariikhda islaamka ee afrika sheekha aan kor ku soo sheegnay dhidib u taaggii boqortooyadani sidoo kale goobta awbarqadle waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay goob muhiim ah oo ay ku aasan yihiin saldanadihii muslimiinta cadal iyo tan reer walaashma alkownayn laftigiisa oo ka tirsanaa boqortooyadii reer walaashma ee qarnigii 13 iyo 14 ayaa lagu aasay magaaladani waa kuwan qaar ka mid ah salaadiintii ka soo aramisay boqortooyadii cifaad 1 suldaan cumar dunyaxuus asaasihii boqortooyadii walaashma naanaystiisuna ahayd adduunyo ama wilinwili 2 suldaan cali bizibi cumar ina cumar dunyaxuus 3 suldaan xaquddiin cumar 4 suldaan xuseen cumar 5 suldaan nasriddiin cumar suldaan xaq addiin waxa uu ka tagay xaruntii hore ee walaashma ee xarar taas oo keentay in adal ay noqoto khatar weyn oo ku soo wajahan xabashida adal waxaa la magacaabay qarnigii 14aad taas oo uu macnaha guud ahaa dagaaladii u dhaxeeyay dadyowgii muslimiinta ahaa ee Soomaalida iyo canfarta iyo boqorkii NFD Amda Sayon oo ahaa imbaradorkii Ethiopia 1344 sanadkii 1332 boqorka cadal waxaa lagu dilay olole ciidan oo ujeedkiisu ahaa in la joojiyo socodkii Amda Sayon ee Zaylac suldaankii ugu dambeeyay ee cifaad ee la oran jiray Sacad ad-Din ayaa dilay Daawit oo Ethiopia ka ahaa imbaradorkii maamuli jiray sanad taariikheedkii 1382 ilaa 1413 horaantii qarnigii 15aad caasimadii Awdal waxaa loo sii raray gudaha magaalada Dakar halkaas oo Sabar ad-Din curadkiisii Sacad ad-Din aasay maamul cusub cadal kadib markii uu Yemen ka soo laabtay muddadaas cadal waxa ay u soo baxday sidii xarun muslimiinta iskaga caawin lahaayeen boqortooyadii xabashida ee Kirishtaanka ahayd cadal intaasi kadib waxa ay isku wada xukuntay dhammaan dhulkii ay hore u xukumi jirtay saldanadii cifaad iyo sidoo kale dhulka bariga fog ilaa Gardafuul kadib 1468 waxaa masraxa siyaasadda cadal ka soo baxay saldanad cusub mucaaradku waxa ay ka soo horjeesteen xukunka walaashma iyadoo ay sabab u tahay heshiis uu suldaan Muhammad ibn Badli u la galay imbaradorkii Bayda Maryama ee Ethiopia kaas oo ku saabsanaa bixinta canshuur sanadle ah taas waxaa loo sameeyay si nabad loogu soo dabaalo gobolka hogaamiyihii ugu weynaa ee mucaaradka waxa uu ahaa amiirkii Saylac oo ahaa gobolkii ugu qanisanaa saldanada kadib amiir Cusmaan waxa uu dhaqaaqay Dakar waxa uu la wareegay xukunka 1471 Maxamed Xasan waxa uu sheegay in salaadiinta cadal ay bilaabeen in ay lumiyaan xukunka dawladnimada oo ay u gacan haatiyaan astaantii xarar ee reer Hareeri iyo Harla ciidamada cadalaad oo ay hogaaminayeen saldanado ay ka mid yihiin Sabar ad-Din Mansuur ad-Din Jamaal ad-Din Shams ad-Din iyo Amiir Mahfuuz ayaa intaa kadib sii waday halgankii lagaga soo horjeeday dhul balaarsigii xabashida hubay carri oo manamaaho hubay lama degay cakiran maaho Amiir Mahfuuz oo la dagaalamay boqoradii kala dambeeyay ee xabashida waxa uu sabab u ahaa dhimashada imbaradorkii xabashida ee la oran jiray Nacuud 1508 laakiin ugu dambeyn isaga waxaa dilay ciidamadii imbaradorkii Daawid Lebnad Tengel 1517 dhimashadii Mahfuuz kadib dagaal sokeeye ayaa ka dhex qarxay
hogaanadii ugu sarreeyay ee boqortooyadii Adal. xilligii hore ee Adal oo ay xudun u ahayd magaalada Saylac ee gobolka Awdal ee waqooyi galbeed ee maanta, xarunta boqortooyada waxay ahayd magaalo qani ah oo wax badan laga helo. waxa ay lahayd haruud iyo hilib, saliidda iyo malabka. intaa waxaa dheeraa muwaadiniinta waxay haysteen fardo badan iyo xoolo dhaqato nooc kasta leh. taasina waxay keentay inay helaan subag, caano iyo hilib badan, iyo sidoo kale kayd badan oo masago, shaciir iyo midho kale ah, kuwaasi oo dhammaantoodba loo dhoofin jiray Cadan. dekada ayaa ahayd mid si fiican looga heli jiray agabka cuntada oo ay u dhoofin jirtay Cadan, Jidda iyo Makka iyo dhammaan carabta kale oo markaasi ku tiirsanaa agabka wax soo saarka magaalada Saylac oo ay ka doorbideen dhammaan wadamada kale ee dunida. Saylac waxaa lagu tilmaamay inay ahayd dekada wax badan oo Cadan lagu talagalay dhoofisa iyo dhammaan qaybaha kale ee carabta, dalal badan ee caalamka iyo boqortooyada badan ee markaasi ka jiray dunida. hubay waa cimir barwaaqaho hubay waana caadil mahdi hubala hubeeyo. ciidamadii cadaaliinta ayaa isugu jiray noocyada seefqaadka ee ahaa ciidamada lugta, qansoolleyda iyo fardooley. dagaalkii Xabashida iyo Cadal waxa uu ahaa dagaal military ee dhexmaray boqortooyadii Xabashiya ee Abyssinia iyo boqortooyadii Cadal, kaas oo socday 1529 ilaa 1543. ciidamada Xabashida waxa ay ka koobnaayeen qowmiyadaha Maya, Amxaarada, Tigreega iyo qowmiyadaha Agaw. ciidamada Cadal ayaa waxa ay ka koobnaayeen inta badan Canfurta, Soomaalida, Harla iyo qaab dhismeedkoodii oo ay ku taageeri jirtay khilaafadii Cusmaaniyiinta. taariikhda labada saldanad ee Cifaad iyo Cadal waa mid aanu halkan lagu soo koobi karin, iyo sidoo kale tan Saylac. qaybtanada shanaad ee barnaamijka taariikhda magaalooyinka qadiimiga ah iyo saldanadihii Soomaaliya ka talin jiray halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa. anigoo Cabduqaadir Maxamed ayaa soo saaray idinlana socodsiinayay. waxaan idinku dhaafayaa maalin wanaagsan. rukumo channelka si aad u hesho macluumaadyada soo socda ee aan soo gelin doono maalmaha soo socda. inta ka horeysa nabadgelyo.